السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada channelka Himila TV waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay guud ahaan geeyiga Soomaaliya iyo wararka bariga dhexe aan ku bilaabay dawladda Djibouti ayaa iska diiday in saldhigyadeeda laga weeraro Xuutiyiinta Yemen ama Iran lagaga duulo sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca Djibouti oo markaasi gacan yaro u ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wuxuu sheegay in Mareykanka iyo sidoo kale Iran ba ay labadoodaba ka diideen in ay isku beegsadaan dekada magaalada Djibouti ama guud ahaan dekadaha ku yaala dalka Djibouti sargaalkan wuxuu sheegay in Djibouti ay tahay dal madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadaha isdiidan iyo arrimaha ka taagan bariga dhexe isagoo sheegay in ay walaac iyo walbahaar xoog leh ka qabaan colaadaha dabada dheeraada ee ka taagan guud ahaan wadanka Djibouti sargaalkan wuxuu hadalkiisa inta raaciyay inaysan aqbali doonin xiisadaha halkaasi ka alowsan in loo soo leexiyo gobolka Geeska Afrika gaar ahaan dhinaca wadanka Djibouti kol hore wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti oo isna hadlay wuxuu sheegay in wax badan ay xeeriyeen oo ay u sheegeen dalalka gobolka ee saldhigyada ku leh Djibouti inaan colaada loo soo rarin wadanka Djibouti beesha ciise ee degta dalka Djibouti ayaa sidoo kale walaac waxa ay ka muujisay haddii Xuutiyiintu ay weeraraan dalka Djibouti in Djibouti ay noqonayso wadan burburay oo aan amni ahayn taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in xaaladdu ay faraha ka bixi doonto laba sargaal oo muhiim ah oo ka tirsan ciidanka dalka Djibouti ayaa waxay sheegeen in Ismaaciil Cumar Geele kol horey ugu sheegay saraakiil Amerikaan ah kuwa Japanese ah kuwa Shiinees ah kuwa Jarmal ah iyo xataa Faransiiska oo guumeysta wadanka Djibouti in aysan aqbali doonin dulmiga iyo daandaansiga ka imaanaya reer galbeedka oo ku aadan in Iran iyo Xuutiyiinta lagaga duulo Jamhuuriyadda Djibouti dhanka kale Somaliland ayaa walaac iyo walbahaar xoog leh waxa uu ka taagan yahay magaalooyinka Berbera iyo sidoo kale Hargeysa magaalada Berbera Somaliland kol hore waxay cadeysay in halkaasi saldhig ciidan laga siinayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Israel kuwaasoo dad badan aaminsan yihiin inay weerar fulin karaan arrinta ugu weyn ee hadda taagan ayaa waxay tahay in Jamhuuriyadda Somaliland ay hadda walaac xoog leh ka qabto ficiladan aan hore loo sii arag ee la leeyahay xaaladda ay dabka ku sii shidayaan calaashan in Somaliland aysan ka fiirsan in ay tiraahdo waxa aan meengeliyo siinayna Israel طبعا Israel marka la eego hadda dunida oo dhan ayaa laga nacay meel aan laga nicin Israel ma jirto meel walba oo dunida ka mid ah waa laga takoora waana laga nacay dad badan marka waxay aaminsan yihiin in Djibouti ay qaadan karto door ah in ay arrimahan dhexdhexaad ka noqoto Somalilandna waxa la leeyahay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ka fakarayaa inuu soo saaro qoraal kale oo u dhigmaya in ay ka laabatay Somaliland baaqi ay hore u soo saareen oo ahaa inay saldhig siinayaan Israel iyo in sidaas lamida ay markaasi beegsanayaan danaha Israel ee gobolka Cabdiraxmaan Cirro wuxuu kulan degdeg ah barqanimadii maanta iskugu yeeray inta badan saraakiisha ciidanka Somaliland isagoo oo u sheegay in xilligan aysan macquul ahayn in Somaliland ay dhexda ka gasho colaadaha isdiidan ee gobolka Geeska Afrika warqad dhawaan ka soo baxday Cabdiraxmaan Cirro xafiiskiisa ayaa dabcan lagu yiri Somaliland waxay barbar taagan tahay walaalaha Israel halkii walaalaha Iran ay dhihi lahaayeen taasi oo dabcan walaac iyo walbahaar xoog leh abuurtay ahna in xaaladdu ay faraha ka baxdo oo ay noqoto meel aan waxba laga qaban karin jawigu uu isku bedelo meel aan waxba laga qaban karin dhowr xubnood oo saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka Somaliland waxay sheegeen in kulamo gaargaar ah ay socdaan iyadoo oo kulamada intooda badanna diiradda lagu saarayo sida ay wararku tilmaamayaan arrinta bariga dhexe iyo in Somaliland ay ka laabato arrimihii ay ku aqoonsatay Israel dhinaca bariga dhexe ayaan fiirinayaa Iran ayaa hub ay leedahay waxa ay ka soo daadgureynaysaa godadka hoostooda waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in sawirro goordhow la helay ay muujinayaan godad hoostood oo Iran ay beegsatay isla markaana ku yaala Israel Sacuudi Carabiya waxaa la soo warinayaa in ay ka fakarayaan in ay jawaabo ka bixiyaan weeraradii laga geystay
dhulkooda iyaga oo aaminsan in dulmi iyo daandaansi lagu sameeyey dhulkooda. xogta waxay intaa ku dareysaa in 2 diyaaradood oo Mareykanku uu leeyahay ay dabcan hadda fariisimo iyo cunaqabateynaba ay ku bilaabeen meelo ka mid ah dalka Kuwait waxa la leeyahay waxa ay soo riday 2 diyaaradood waa sidoo uu Mareykanku sheegay isagoo ka cararaya ceebta ah in la yiraahdo Iran ayaa diyaaradahaasi soo riday. Iran iyadu way hadashay oo waxay tiri haba yaraatee ma jirto wax ku saabsan in la soo riday diyaarado Mareykan ah, laakiin Iran waxay ku andacoonaysaa in diyaaradahaas iyagu ay beegsadeen balse aysan beegsan bay yiraahdeen dhinaca Kuwait oo wax dagaal ah dabcan xilligan uusan kala dhaxayn dawladda Iran. saaxiibayaal wararkan intaas bay ku dhan yihiin haday tahay markay kugu wareysay channelkan ku soo bir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada aan dabcan mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga inoogu reeb. soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan sharaf iyo karaamo.